aniga ahaana buuggan iyo kii ka horeeyay waa kuwii jeclaysiiyey wax akhriska. Waxa sayntaaba dheer duruus cilmiya oo la xiriira cilmi nafsiga. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Khalil Cabdirashiid. YouTube channelka daawanaysiina waa ka faa'iideysan. Fadhiya markaad daawatid video ama muxaadaro ka hadlaysa wax akhriska iyo faa'iidooyinkiisa. Ma ku gala dareen ama wax xiiso ah inaad bilowdid wax akhriska. Markaad istiraha bilowna ma garan weydaa meel aad ka bilowdo ama buug aad ku bilowdo wax akhriska. Haddaba maanta waxaan ku hayaa 5 buug oo aad ku bilowdid wax akhriska isla markaana ku jeclaysiiya oo ku qoran afkaaga hooyo ee Soomaaliga ah sidaad u ogaatid 5 buug nala soco. Buugga koowaad ayaa ah Aanadiina Geeye waxaa qoray Ibraahim Yuusuf Hawd. waa buug wado cusub u furaya bandhigga xikmadda iyo suugaanta Soomaalida. waa sheeko meelo awaal ah oo dhacdooyin jiray ka muuqdaan. Aanadiina Geeye runtii waa buug yaab leh. farshaxanimada heerka sare ee loo qoray waxaad markiiba odhanaysaa ma arag buug kan la mid ah. macnaha uu xambaarsan yahay, sheekada xiisaha badan, fikirka daahsoon, dhaqanka iyo falsafada ku jira awgeed waxayna ku tusaysaa xeeldheerida qoraaga buugga iyo aqoonta durugsan ee uu leeyahay hal abuurka noocan ah. sheekada buuggani waxay ku saabsantahay noloshii qofka Soomaaliyeed kala soo kulmay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed muddadaas oo u dhaxaysay dhammaadkii 60maadkii ilaa iyo burburkii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. waa sheeko aad u macaan waxaanan hubaa inay ku cajabin doonto. buugga labaad ayaa ah Saxarla. waxaa qoray Faarax Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Sheeko Xariir. sheekada buuggan ee Saxarla waxaad ugu tagi doontaa qiso intaad akhriyayso kaa ilmaysiin doonta, marna ku beeraysa dareenkaaga su'aalo in badan jawaabahoodu maskaxdaada ku soo laaban doonaan, iyadoo kaa dhigaysa sidii qof caalam kale jooga. sheekada Saxarla waxay daaha ka qaadaysaa nolosha carruurta rajanimo ku korta iyo kuwa derbi jiifka ah. waa sheeko xambaarsan waayo aragnimo iyo qiso cajiib ah, iyadoo sheekadan ay tahay 465 page ayaa haddana aad ku dhammayn kartaa ugu badnaan 3 maalmood xiisaha ay leedahay awgeed. aniga ahaana buuggan iyo kii ka horeeyay waa kuwii jeclaysiiyey wax akhriska. buugga saddexaad ayaa ah Aamina Al-Mufti. waxaa turjumay Kamaal Axmed Cali. Aamina Al-Mufti raaxo ku kor u dhalatay dalka Urdun oo qalbi jabkii koowaad ee nolosheeda kala kulantay wiil Falastiini ah oo kaga baxay caashiq caruurnimo. waxbarasho jaamacadeed oo ay u tagtay dalka Ustari kaasoo sabab u noqday inay ka fogaato dhaqankii iyo anshaxii dhowrsoonaa ee lagu soo barbaariyey. guurka Yahuudi ay jeclaatay oo shardi kaga dhigay inay Islaamka ka baxdo, iyo bilowgii geedi dheer oo ku hoggaamiyey inay Mossad u noqoto basaasadii Carbeed ee abid ugu khatarsanayd. cadaawadda ay Carabta u qaaday iyo sababtii kaliftay. xiisaha qaabka uu sirdoonka Falastiiniyiintu u fashiliyey basaasnimadeedii. buuggan wuxuu si faahfaahsan u soo bandhigayaa sheeko isaga daba qaadaysa Urdun, Ustari, Israa'iil iyo Lubnaan. waa qiso dhab ah oo xambaarsan xogo aanay dad badani ka warhayn oo la xidhiidha loolanka Falastiin iyo Israa'iil. waxa sayntaaba dheer duruus cilmiya oo la xidhiidha cilmi nafsiga. buugga afraad ayaa isaguna ah Ku raaxayso noloshaada. buuggan loogu magac daray Ku raaxayso noloshaada wuxuu ka mid yahay buugaagta tirada yar ee uu akhristuhu uga faa'iideysan karo macluumaad muhiim u ah naftiisa, gaar ahaan wixii la xidhiidha farxadeeda iyo sidii murugada looga saari lahaaba. qoraaga buuggan waa Abuubakar Maxamed. waa wiil dhalinyaro ah. waxaa ka muuqatay inuu dadaal badan geliyey sida xirfadaysan ee uu u soo ururiyey xogta wax ku oolka ah ee uu buuggani ku saleysan yahay. waxaad ka heli doontaa sida hufan ee uu u daliishanayo aayadaha Quraanka Kariimka ah iyo axaadiista Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. buuggu wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood oo aad qayb walba ka dheehan karto murtida ay xambaarsan tahay. qaybta koowaad ha murugoonin. raaxada ruuxda, raaxada maskaxda, raaxada qalbiga iyo raaxada jidhka. ugu dambeyn ka farxi dadkaaga. waa buug akhristaha tallaabo ugu sharaxaya isla markaana ku dhiirigelinaya
sida uu noloshiisa uga dhigi lahaa mid farxad, raaxo iyo xasilooni leh. insha Allah waad ka faa'iidi doontaa haddii aad akhriid. buugga ugu dambeeya ayaa ah Dariiqa Guusha. wuxuu ka mid yahay buugaagta waaweyn ee kaa caawinaya inaad heshid awoodaha qarsoon ee kugu dhex jira, waxaana qoray Dr. Ibraahim Al-Fiqi. buuggu wuxuu ku saabsan yahay wadahadal ka dhexeeya wiil yar iyo nin xikmad leh, iyadoo marka dambe wiilka yar ay u caddaanayso inaanay wadada guushu kaliya ta ahayn qaabkaad u fikirtid iyo saad wax u qorshaysatid, laakiin ay tahay rumayntaad rumaysan tahay Ilaahay iyo inaad tala saaratid. talooyin, wadooyin iyo bugag ay ka buuxaan daawooyin ku geynaya caalamka guusha iyo nolol isku dheeli taran dhanka dunyada iyo diintaba. waa buug faa'iidadiisu ay aad u badan tahay, milihiisana aad heli doontid haddii aad dabaqdid. muuqaalka maanta intaasuu ku eegyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.